السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدني مروي بكسر هذا برنامج كيني كساب سنة شقة سير لو دونت أما لو ديارسدو أما نقطة قف ديارسن إن الشغل هاتستو سو هذا شقة مركب كهل لأنه أما قف مركب الدنيا من الشقة نقضه وإنه هذا قف ديارسن هذا السيد إنه ديارنا قف مركب الدنيا إنه وشقة شركة أو شقة عصده أو بلغ رئيس شقة وأصيب الدنيا إنه مستقبل كيسه كودستو تامرك إنه معناه هذا أنا شرح بريهم بقى وحسويف بحايي أما إن أركيني دلنيار بدن أو قربة إيمانيس ولو هذا دادكيني أي قربه بقولك باللحظة أي دادكيني قربها هو اللي بدأ يرتي أي أعد الصوت الشي وحيلا كل من عقبة ضفر بدن وحق الشقة عقبتها مركز شرنك صوت الحيس أول دبقلي waxay noqotay caqabado aan laga aamusi karin oo ka yimi xagga shacabka ama dhalinyarada Soomaaliyeed ee soo gashay qurbaha wuu iska waaya badan yahay calafkuna runtii waxa weeye qof iyo nasiibkii waxa weeye calafku adoo dhala baaba la qoray waxaad cunaysid iyo arsaaqadaada laakiin haddana dadaal badan baa jira oo dadku ay shaqada ku raadsadaan marka waxaan yara ifinayna halkaas waxaa iga muuqato in aan markaa ifiyo sideeba qofku shaqo ku heli karaa markuu qurbaha yimaado sideese ugu fudud horta markaa wax waa kala horeeyaan dadkeenu badi uma badna dad professionaala ama xirfado yaqaana badanaa Yurub iyo Mareykanna waxa lagu shaqeeyaa dadku inay xirfado ay leeyihiin ay u badan yihiin marka xagga ragga oo kale badanaa waxa ku shaqeeyaan shaqooyinka physicalka ah ee gacanta laga shaqeeyo boqolkiiba 90 xafiisyada Yurub iyo Mareykan waxa fadhiya waa dumar inaguna waxa weeye dadkeena badi waxay jecel yihiin markii waddankooda joogaan inay xafiis ka shaqeeyaan waxa markaa horta wax soo urursaday intaan xaggaaba gaarin horta qofku ma yahay qof u diyaara si kastaba shaqada ha ahaatee ama physical ama mentality mid doonta ha ahaatee horta sidee baa loogu diyaar garoobiya waxa loogu diyaar garoobiya oo talada ugu horeysa horta ay tahay qofku inuu ahaado luuqadda horta inuu soo barto luuqadda markaynu leenahay wadamadu waa kala luuqada badan yihiin hadda luuqadda internationalka adduunka ah oo ugu badan horta waa luuqadda Ingiriishta ah waxaan kula talinayaa dhalinyarada qofku uu ogyahay inuu kolley tegayo ama uu soo baxaye inuu wax iska sii hawl yareeyo oo aan caqabado kala kulmin oo uu soo diyaarsado inuu horta luuqadda si fiican soo barto marka uu joogo waddankiisii iyo marka uu Kenya joogo iyo marka uu Itoobiya joogo ama marka online ku baran karo hadda adduunku waa iska fudud yahay wayna ka jabantahay xagga marka la joogaa waxbarashada Yurub iyo Mareykan ay ka jabantahay waqti badan ku qaadan mayso waxa halka marka kaga muuqanaysa in qofka halka markuu yimaado haddaan luqadii aanu garanaynin in ay waqti ku qaato ama uu shaqo waayaba dadkeena wax soo bartay laftigoodu waxa loo baahan yahay iyagana inay u soo diyaar garoobaan sidii ay u soo samaysan lahaayeen ama qofku u samaysan lahaa si fiican المثل marka shaqada aad tagayso shaqada aad balay garayso waa si diyaarsataa CV u qalma qaabka aad u shaqeynaysid CV-ga soo qoranaysa waa fahmaysaa kulli CV sa loo qoro addresskaaga iyo emailadaadii iyo wax la xiriirad ku soo qoraysaa waxaad ku soo qoraysaa waxbarashadaadii waxaad ku soo qoraysaa reference-kaagii ana luuqad ka soo shaqeysay dadkeena waliba qiimeeyaan reference-ka ugu muhiimsan
وقفك هدانو ريفرنس أنا سميسن أنا حلقة وذا ماشي وسو شقي هدانو سو شقينا مثلا أو حبرنا هنا ريفرنس waxaad ka dhigi kartaa macalinkaaga mataqaanaa waad ka dhigan kartaa reference waayo marka shaqo lagu siinayo dadka shaqada ku siinaya waxa tahay ku garanayaan ama meesha ka shaqeystay ma fahmayaan marka reference wuxuu u muhiim yahay qofka inuu kalsoonidiisa uu siiyo meesha uu shaqeynayo marka hatta shaqo ka tageysana waa inaad reference fiican ka qaadataa oo si fiican ugu shaqeyso si ay reference kugu noqoto hadhow lagu weydiiyo waayo qofkan inaad waalan tahay inaad miyir qabto inaad shaqadan garanaysid inaad garanaynin waxaad noqon doonto ma garanayo qofkan shaqada ku siinaya laakiin wuxuu ku aaminaya wax reference ma haysataa xagga soo shaqeysay waa su'aalaha ugu horeeya ugu muhiimsan lagu weydiinayo xagga wax ka soo baratay marka tartiibtaas waa inaad si fiican marka hore soo dhisataa luqadda waa inaad soo dhisataa wadamadan Scandinavian ka laftigooda luqadahooda online waa lagu helaa marka Afrika joogto online waad ku soo baran kartaa adigoo wax yaqaan ayaad imanaysaa marka hadda halka dhalinyaro badan oo ka faaloonaya koonaya Yurub shaqo ma taalo Canada shaqo ma taalo Mareykan shaqo ma taalo taas waxa weeye waxay u badan tahay ama markii la baaray ay u badin noqotay inaanay xaggi luqadda aanay ahayn dad hodan ku ah luqaduna waxa weeye waxa ugu muhiimsan lagu weydiinayo haddii aan luqadii marka aad fahansaneen waxa dhib ku noqonaysa in marka shaqooyinka caqabad kaala hor yimaadaan ay caqabad kaala kulanto waayo wixii waxa isku dhawaanshihii iyo isfahankii oo dhan ayaa lumaya marka caqabad weyn baa kaala kulmi doonta haddii aan marka luqadda iska dhisin luqaduna waa ugu muhiimsan waa ugu shaqada fiican aad ku heli kartaa waa tad ku hormari kartaa laana waayo shaqooyinku darajooyin bay leeyihiin koorsiya jira lagu siinayo darajooyin aad si dhulkeeni maaha oo kale eexda iyo hebelba halka iska fadhiista iyo hebelba halka loo magacaabo waxa weeye qof aqoontaada ku hagaysa marka luqaddu si kordho aqoonti kalena waa si kabanaysa oo kor baad u soconaysa marka sidee baad u apply garanaysaa markaad la fadhiisato ninkaas professorka ama qofka interview ka qaadaya ee ku wareysanaya waa inaad ahaato qof isku kalsoonin waa inaad ahaato qof isku kalsoon waa inaad sii xidhato dhar fiican waa inaad taqaana isii toosid dharkaaga dharka ugu fiican maalinta waa inaad sii gashatid waa inaad si kalsoonin aad taqaana qofka u wajahdid waa inaad isbahdilin oo shaqada saasan lahay waxaas waa baahi bayga muuqata iyo waxa iyo calaacal aad gelin waa inaad si mataqaanaa nool aad ula hadashaa qofka oo kalsooni leh dad islaamaynahay islaamnimada aad muujisayo aad aamintaa ilaahay hadduu kuu qoray inaad helaysid laakiin aanad isbahdilin oo aad si nool oo nadiifa interviewgaaga adigoo soo baxdid ula sheekaysatid qofkan kaa qaadaya si kalsooni leh inuu yahay qof shakhsi ah oo ilaahay ku siinayo waa inaad niyaddu ku haysaa haddii ilaahay kuu qoray marka qaababka shaqooyinka loo abaalgarinayo horta waa qaababka uguna muhiimsan isfahanka luqadda oo luqaddaada markaad soo jabsato anigu weli waxaan ka talin xagga inaad ku soo barata saa hore idinku sheegay laanna waayo dhulkanu ma waqtina u heli maysid waqtigana ku adkaanayaa waqtigiina waa mataqaanaa lacagtooda waa qaali haddii aad lacag koosha haddii kale lagu siiyana dee waad garanaysaa wax weye maalinba uun saacad iyo maalin baa lagu siinayaa marka wax weeye iskuma gelaysid inaad wixii adigiina qaybna aad ka shaqaysid qaybna luuqadda aad ka baratid sharciyada badi wadamadana waxaa lagu xidhaa waddankaa joogta luuqadiisa aad bay muhiim u tahay hadda oo xusbiyadatan hadda badi qabsaday ee u badan qarbiga waxay dadka ku xujeeyaan inuu afka waddanka uu qofku barto saasunbaa jinsiyad ku helaysaa ilaa adigu qofaan Soomaali aqoonin jinsiyad ma siisayaan marka dhalinyarada waxaan kula talin lahaa waxba yaan dadka mataqaanaa niyad jabin Yurub iyo Mareykan dhaqaale xumo way ka dhacday laakiin saa la moodaya maaha weli shaqooyin way yaalaan niyaddan yaan la iska xumaynin wax shaqo
mataqaanaa shaqalaan ma jirto intaad nooshahay risqaagu waa nool yahay intaad nooshahay wax Ilaahay ku qoray wad helaysaa negative-ka iyo waxyaabaha social media aan ka aragnay dadka meesha taagtaaganay shaqooyin baan kii ugu jiraa iyo shaqooyin baan laayahay iyo waxaas oo dhan waan aragnay waxaan leenahay joojiya negative-ka joojiya barbagaanka risqa Ilaahay waa bixiye joojiyo idinka ma taqaanaa hawshiini ka soo bixi waaye idinku waxa sameeynaysan tiina wanaagsan ka raacda teeda kale inaga madka dadkeenu ka soo waxbarashada ay ku soo Afrika ka soo galayaan ama waddanka ka soo bareen jaamacadda arkaysa nin kale waxaan dhigtay economics soo dhigtay caafimaadka soo dhigtay waxaan soo dhigtay kana soo dhigtay 4 maado 5 maado 6 marka taasuna waxa weeye si fiican lagu arkin dadka waxa weeye ku takhasusay culumta maadiga waxay ku leeyihiin ama waxbarashadaba waxa markasta fiican in qofku wax kaliya hadduu caafimaadka bartay waa inaad caafimaadka ku takhasustaa oo hore u socotaa oo wadataa haddaad diintii baratay aad quraanka baratay waa inaad quraanka xifdidaa oo tafsiirkiisa barataa oo culumul quraan aad gashaa marka haddaad tahay quraanka halka bartay fiqigiina waan bartay kanna waan qaatay intaas subject asu keento carabiga aan bartay waxa weeye dadkan ma badana sifiyadaas kuma farxaan laakiin waxay ku faraxsan yihiin qofka hal subject ee kaliya maadada kaliya soo bartay ee ku socday ee injineerka ah injineernimadiisa ku socday hada injineerta electrician ka ku socoto siiqod ka meel gaad ku dadaal ku takhasus caafimaad barata caafimaadka ku takhasus haddaad baratay mataqaanaa IT gaagii wado marka waa soo afjarmayaan marka caqabaduhu way yaraanayaan waxbarashadu way yaraanayaan muhiimkuna waa reference-kaas wax weeye macnaha meeshaad ka soo shaqaysay haddaan soo shaqayn wax soo baratayna waxa weeye waxaad ka dhiganaysaa macalinkaagii weliba badanaa dadkeenu waxay eegaan shaqay ka tegayaan qofkan ogeyn baa lambarkiisa ay ku qolanayaan reference ka dhiganayaan waa inaad isu sheegtaa qofka hadda isku wanaagsan shaataniyo reference baan kaa dhiganayaa waxaan kaa dhiganayaa mataqaanaa haddaan shaqa abalay garayo shaqada haddaan ka tegay shaqo kalaan abalay garaysanayaa reference baan kaa dhig waa inaad isu sii sheegtaa hadhata waa lasoo wacayaa si aan caqabad kugu keenin dad laakiin telefoonkiisa aan weyn aad siiso ama aad ku qorato CV-gaaga hadhatana uu ku yidhaahdo anu qofka ma garanayo waa caqabad kale markaa saasaa fiican risquna waa risq cala allah inkastoo wax Ilaahay qorina wuu siinayaa qaar laba qof oo gurigood jooga arkaysaa qofna dadaalayo aan waxba haynin qofna shaqaynayo oo Ilaahay meel dhow ka siiyey risquna waa sidaa dadaalkuna wuu ku jirtaa marka dhalinyaro hala dadaalo wajalankii soo darxay soo idin leh barnaamijkii maanta intaas ku egyahay soo dhawaada leegta iyo subscribe-ka bariyaha waa nagu yaryahay subscribe iyo leegta iyo share-kana nagu qabta. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.